بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan ku bilaabanayaa duco kooban ilaahay subxaana wa tacaala walaalaha idhegaysanayo idaawanayo waxaan ilaahay u weydiinayaa dhammaanteena noo weydiinayaa ilaahay inuu na xifdiyo cuduradan socdo oo adduunka aafeeyey ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu na xifdiyo qofkii ilaahay uu ku imtixaanay waxaan ilaahay u weydiinaynaa caafimaad degdeg ah oo dhammaystiran intii ku dhimatay xanuunada socda ama coronavirus ha ahaado iyo kuwa la midkaa ilaahay waxaan u weydiinaynaa in shuhadaa alaakhira ilaahay uu ka dhigo oo ilaahay uu cafiyo aljanno uu ka dhigo inta weli uusan soo gaarin waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xifdiyo uusan soo gaarsiin iyaga ehelkooda iyo caruurtooda waxaan kaloo ducada aan kusoo khatimayaa qof walba muraad uu leeyahay dhegaysanayo oo aniga aan ku jiro bini aadan aan nahay baahi ma naga dhammaato waxaan ilaahay weydiisanaynaa muraadka aan leenahay khayr hadduu noogu jiro ilaahay degdeg inuu noogu sahlo maanta aan hadlayo allahuma aamiin allahuma aamiin allahuma aamiin intaas kadib maanta waxaan baranaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo aayad qur'aanka ku jirto aayadda ugu weyn qur'aanka waxa uu ka kooban yahay 114 suuradood suuradda ugu weyn laba riwaayad ayaa jirto riwaayad dhehaysa suuratulfaatixana way jirtaa riwaayad dhehaysana suuratulbaqara way jirtaa laakiin marka la yidhaahdo aayadda ugu weyn fi suuratulbaqara ayay ku jirtaa ubaya ibna kacab ayaa nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maalin isaga uu la joogaa wuxuu yidhi ubayo waxaa tahay caalim qaari aad tahay waagaas hore marka qofka qaari la yidhaahdo ma ahayn qof qur'aanka akhrintiisa keliya yaqaano ama qur'aanka keliya xifdiyey waa scholar uu ahaa caalim oo wax baarbaari karo oo qur'aanka wax kala soo bixi karo marka wuxuu dhahay caalim weynaad tahay ma sheegi kartaa qur'aanka ilaahay soo dejiyey aayadda ugu weyn marka asxaabta maadaama rasuulka macalin uu ahaa ixtiraam weynay muujin jireen laba sabab darteeda kow ixtiraamkii macalinimada qofka macalinkaaga ma ka hordegaysid marka ixtiraamkaas waa muujin jireen ixtiraamka labaad ay muujin jireen waxa waaye ixtiraamka nebinimada sala allahu calayhi wasalam nebi uu ahaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo loo waxyoodo oo jawaabaha ka helo xagga sare oo ilaahay subxaana wa tacaala jibriil uu usoo diray jibriilna macalinkii rasuulku ahaa calayhi salaatu wasalaam marka ma rabin inuu ka hordego wuxuu dhahay allahu warasuuluhu aclam aayadda ugu weyn ee qur'aanka ku jirto ilaahay rasuulkiisa garanayaan uu dhahay ilaahay rasuulkiisa garanayaan markuu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku celiyey marka ku celintaas labaad culummadu waxay dhaheen ubaya ibnu kacab wuu fahmay wuxuuna u fahmay in ay tahay adaan rabaa inaad baarbaarto aad kala soo dhex baxdo markaasaa markuu ku celiyo u dhahay ubayo su-aashaan kugu celiye qur'aanka ilaahay maadaama uu ku baray aadna ka mid tahay culummada qur'aanka ku takhasustay ee ardadayda ma sheegi kartaa aayadda ugu weyn ee qur'aanka ku jirto markaasaa wuxuu yidhi aayatulkursi nabigu wuu farxay calayhi salaatu wasalaam jawaabtaasi ilaahay uu waafajiyey ku farxay markaasaa gacantiisa rasuulka uu xabadka saaray macnaa gacantii rasuulka wuxuu saarayaa maaragta ubaya ibnu kacab xabadkiisii isagoo dhahayo cilmigaasi ilaahay ku siiyey ilaah kuu barakeeyo marka waa aayatulkursi uu dhahay aayatulkursi waxay dawo u tahay 4 xanuun oo soomaalida inta badan ay ka sheegtaan xanuunadaasna dhakhaatiirta markaad u tagto ma daweyn karaan dawona uma hayaan waxaa dawada ay ku jirtaa ama ay ku qorsoon tahay qur'aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam dad badana way arkeen maaragtay astaamaha xanuuno kala duwan
xanuunadaas kala duwan markay arkeen dhakhaatiiray u tageen dhakhaatiirta markay u tageenna dhakhtar kasta wuxuu ku leeyahay dhiiggii waa baaray maaragtay waxaan ku saaray ultrasound ama waxaan ku saaray wax walbo wax lagu baarayo oo dhan waxaan ogaaday in jirkaaga wax aad qabto uusan jirin run waay sababtoo ah wax la arki kara ma aha xanuunadaasi afarta ah makhluuqaad kalena wuu ku xiran yahay xanuunadaas oo sabab u ah inta badan makhluuqaad aan la arkaynin marka qofka mu'minka ah wuxuu isku ilaalinayaa qur'aanka iyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala iyo wardigu isku ilaalinaya aayatul kursi fadaa'il fara badan ay leedahay marka waxaan u kala qaybinayaa cashirkayga iyadoo kooban marka hore aayadaha kale maxay dheer tahay oo fadaa'il ah laba waxaan ka hadlayaa aayatul kursi dawo inay tahay oo xanuuno badan ay daweyso saddexna waxaan sheegayaa intaan ka gaari karo qisas oo dhacdooyin dhab ah oo aayatul kursi ay dawo u noqotay qaar ka mida qisooyinkaas kow fadaa'isha aayatul kursi waxaa kugu filan qaar ka midaan xusayaa fadaa'isha waxaa kugu filan nabiga calay salaam wuxuu yidhi qofkii akhriya aayatul kursi salaad kasto shanta waqti ka bacdi lidaalika dadku waxaan ku dhahaa markay i weydiiyaan aayatul kursi haddaan joogteenayo maalintii meeqa jeer aan akhrinayaa waxaan dhahaa ugu yaraan 7 jeer haddii kale ka badan xaggee ka keentay qofka hadduu i yidhaahdo aan waxaan u sheegaa meesha aan ka keenay rasuulku wuxuu yidhi alayhi salaam qofkii aayatul kursi akhriya man qara'a aayatul kursi dubara kulli salaatin lam yamnachu min dukhuuli aljanna ila an yamuut xadiiskaas micnihiisa waxa waaye sala allahu alayh wasalam uu noo sheegayaa qofkii aayatul kursi akhriya salaadaha shanta ah dabadooda markaad dhamayso ama gadaashooda wardigaad dhamaysay subxaana allah alxamdulilah allahu akbar 33 markaad dhamaysay kabacdi aayatul kursi haddaa akhriso waxaa jannada kaa xigta oo keliya inaad dhimato micnaheed waxaa loola jeedaa qofkii soo fadhiya aayatul kursi dhameeya oo dhinta ahlu janno waayo nabigaa dhexe calayh salaatu wasalaam fadli kale ay leedahay 2 salaadood qofkii markii wardiga aad dhamayso aad dhahdo alxamdu lilah 33 subxaana allah 33 allahu akbar 34 kadibna aayatul kursi aad akhrisato waa 2 salaadood salaada subaxa iyo salaada fajarka wuxuu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofkii aayatul kursi akhriya oo markaasi raaciya aayatul kursi uu akhriya muxuu raacinayaa allahuma ajirnii min annaar اللهم أجرني من النار 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 تضبجر سجون ولي حدلين قف كاسي أجاره الله إلهي سبحانه وتعالى وحو ككورنا يا من النار نار إلهي ككورنا يا وفضلك لو إرادة إله هو حال شيء هبين إني سودكتي أيضا markay soo degtay adduunka isbedela ku dhacay rasuulkuna waa loo sheegay isbedel ku dhacay waxay ahayd wax walbo la caabudayo sanam ah oo taagnaa dhulka way wada daateen way burbureen ilaa rasuulka la soo gaarsiiyey oo la yiri asnaamtii dhulkay wada daateen maxaa dhacay aayatul kursi la soo dejiyey waa aayatu tawxiid waxay la weynaatay saas waay waxay la weynaatay waxa waaye tawxiid oo dhan ayaa ku urursan aayadaasi casharkayga walaalkay deeq darajo oo duubayo from university iyo xogmaal waxaan u sheegay in cinwaanku ka dhigo asraar iyo cajaa'ibta aayadan ay leedahay oo dad badan aysan ogeyn dadku inaysan ogeyn waxaa proof ah haddaa weydiiso qof walba aad dhahdo ma akhrisaa salaad walba gadaasheeda ama ma akhrisaa salaada subax iyo salaada maqrib gadaasheeda wuxuu ku leeyahay maya ama wuu og yahay
wuuna yaqaanaa laakiin wuxuun la akrin ama tawfiiq ilaahay ma waafajin ama fadaaisha ay leedahay uusan ogeynba wuu ogyahay aayad ahaan inay fadli leedahay laakiin waqtiyadaas gooni loo akrinayo fadaaisha ay leedahay marka dadaa is weydiinayo asraarta ku qarsoon maxaa waaye fadaaisha iyo asraarta waa isdhexgelinayaa asraarta ku qarsoon waxaa waaye waxaa ku jirto ilaa dhowr iyo toban asmaa ullah subxaana wa tacaala iyo sifooyinka ilaahay oo ku qarsoon halkaas waana aayadda keliya oo leh marka aniga qaaran ka sheegaya ilaa 10 aan idin sheegaya shanna way muuqataa magacyada ilaahay shanta muuqato waa shantii ilaahay subxaana wa tacaala saddex ka mid ilaahay wuxuu yiri rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam haddii ilaahay lagu tuugo qofkii xanuunsan markuu gacmaha taago uu saddexdaas isticmaalo oo magacyada ilaahay ah ilaahay wuxuu rabo siinayaa waxaa ku jirto shantaasaan sheegayaa allah waa shanta muuqato waay allah shanta aan muuqanna waa sheegayaa oo ku qarsoon alxayu alihii noolaa kelmadda alxay alif iyo laamay wadataa annaga xayun aan nahay kullu xayin yamuutu qof walba wax walba oo noolo ah wax walba oo noolo ah oo noolanimadiisa cadam ka horeysa aan horey u jirin wuu dhimanayaa laakiin allah subxana wa taala waxa waaye alxayu macnaha alxayu alihii noolaa oo saabiq uma lahan uma horeynin cadam ilaahay subxaana wa tacaala xayaat abadiya azaliya waaye laakiin annaga nolosheena waxa waaye kullu man calayha faan wax walbo dhulkay jooga oo dhan xoolo iyo makhluuqaad kasta oo nool oo dhan waa dhimanayaan nolol la-aanaa ku dhacayso waa dhimanaynaa laakiin ilaah alxayu waaye magacaas alxay kow allah allahu laa ilaah magaca allah alxay alqayuum iyo labada ugu dambaysa oo ah alcaliy alcadiim shantaas magacyaa ku jiraan shantaas marka saddex ka mid ah waa magacyadii uu dhahay rasuulka alayh salaam ilaahay ku tuuga alismu alacdam culamadu waxay dhahaan alismu alacdam magaca weyn oo ilaahay haddii lagu baryo ilaahay u ajiibo hal magac ma ah waa magacyo waayo waxaa magacyadaasna waxaa ka mid aha layidhi allah iyo alxay alqayuum culamada qaarkood waxay dhaheen maya alxayu alqayuum waaye ilaahayna saddex meel uu ku sheegay ilaahay wuxuu ku sheegay kow في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لبا في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سدح في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم قرآن كأردن سدح اسماء الكليكة جرتها البقرة آل عمران إيوه سورة طه labadaas magac ayay culumada dhexeen ayaa laga dooranayaa sababta waxay tilmaamayaan allah oo baaqi ah wax walba ka soo har baaqi ma noqonayaan ma dhamaystirna idan marka saddex shan magacaan idin sheegay hadda oo ku qarsoon wax oo muuqata shana ku qarsoon marka allah waxa ku qarsoon ilaahi subhanahu wa ta'ala maadaama macbuud uu yahay al-ilaah yu'bad isaga noqonaya marka magacaasi allah la ilaha لا إله هل كاس نفي أهاني وجرت الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله حق له عابد مجرى إلهي سبحانه وتعالى الحي القيوم إساق ما هنا هل كاس حق وجرته الإله مقعد إلهي سبحانه وتعالى الله بعض العلماء وحيدهان الله اسم العالم واي علماء قاركو اسم العالم حلو جدا مقع قارئة إمام حاجر إمامك أو نحويين تلو يقانو imaamkaas waa sibawey markuu dhintay saaxiibkiisa riya ku arkay markaas wuxuu yiri maada facala allah bika ilaahi muxuu kugu sameeyay ana isagoo nuurayo arkay aad u iftiimay oo faraxsan dad badan riyooyinka lagu arkaa markay dhintaan markaas wuxuu yiri ilaahi wuxuu yiri waa ku karaameeyay waxaan kugu karaameeyay an akhtarta ismi in magacayga aad ku doorato aad u doorato calamul a'laam magac gaar ah oo magacyada gaarka ah ka soocan magacyada gaarka waxa way magacaaga oo kala way faarax xasan abdullaahi deeq waa magacyo gaar way qof uu gaar u yahay magacyadaas waxa la yiraahdaa ismul calam
الله marka waa magaca ismul calam waa magac gaar waa allah waxa kaloo la yiraahdaa magacyada ilaahay oo dhan magaca allah wuxuu muujinayo oo dhan ama 99 magacyada ilaahay hadaad ku tilmaanto oo aad ku soo koobto allah ay wada dhexgalaan allah ay dhexgalaan marka iyadoo kooban meeshaasi asraarta ku jirto 5 magacyo ku qarsoon ayatul kursi culamo qaarkood waxay gaarsiiyaan 7 ay gaarsiiyaan waxay gaarsiiyaan 7 ma 12 ay gaarsiiyaan laakiin maadaama waqtigu igu kooban yahay 5 soo qaadanaya al-ilaah waa sheegay waa koow waxa kaloo ku qarsoon الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده له ما في السماوات وحاكو قرصون دهان علماء له ما في السماوات وحاكو قرصون المالك إله إنو يحي مركب الله بو صدح أي هرد له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وحاكو قرصون الله إنو يحي الشفيع إلهي الشفيع أسماء إله وحكمتها أسماء إله سبحانه وتعالى كي إرجعيني أو ضدك إرجعين تكأقبلاي الشفيع وحكلا أنبياء أولياء يضدك إلهي وفصحي أو شهداء إكمتها تاسنا مركه الله المالك الشفيع الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم هل كاسو حكو هرسان العليم وأفر العليم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم العليم ومقع إلهي علم بدنواه بد شنات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع ولا يحيطون بشيء من علمه وحكو قرصون بن آدم وحمد كوبك لكن إلهي المحيط واي وحبو كوبا وسيو ذكرنا ولا يؤوده حفظهما هل كاس وحكو قرصون يدهان إلهي عليسكما أهن إنو دلك إيو عرك إنو إلاليو إلهي عليسكما أهن وحكو قرصون إيادنا محي قدرة الله سبحانه وتعالى الله إنو يا القدير كوي تمنان قارسي لكن وقت كان نغير مركا آية الكرسي فضائشeedu waa badan tahay fadaa'isheeda way badan tahay raali hada waxaa kamid ah fadaa'isheeda iyo asraarteeda aan ka soo qaadanayaa حديث كلا يا جرى النبي عليه السلام قلت المامي سيدنا علي الله hadlay wuxuu dhahay kaalay hayuu dhahay waxaan ku barayaa uu dhahay aayad hadaa akhriso ilaahay uu aamin yeelayo adiga ehelkaaga gurigaaga iyo dariskaaga aayatul kursi marka akhriso oo guriga habeenka ku akhriso 7 jeer aan dhahay 7 idin sheegi doonaa 5 waa sheegay already labada kale waxa waaye habeenkii marka qofka faraashkiisu aaday uu seexanayo aayatul kursi uu akhrinayo subaxdii markuu waa bariistana aayatul kursi uu akhrisanaya waa labo habeenkii markaa seexanaysid subaxdii markaa waa bariisato si gooni haddana 5 waqti oo salaad gadaashooda akhrisanaysaa 7daasi joogto qofka inuu akhristo waayo maxaa dhacay markaas إلهي رسولك سحوير سيدنا علي وحكوير هداد سميسو إلهي وحو إلالينايا أمني يكون ولانيسا أمان كور أمانة الغسينة يا أمان كسيناي جنك أمان كسينايو بن آدك أمان كسينايو وحي وحدي بايا أمان كسينايو أذيك كريمة أذيك إهل كاغا قري كاغا يدرس كاغا الله أكبر الله أكبر سو مجد مركز سؤال كلا إيمانيسو qofkii oo dariska ahaa ma akhrisan adig kaliya akhriyay say dariska loo ilaalinaya culimada waxay dhahaan fadliga aayada ee leedahay waxay ku faafaysaa dariska oo dhan ruux akhriyay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu karaameynayaa marka ma aragtay mar lagu dhahayo oo kale adi dartaada waxaan u sameynayaa
intaasoo qof aan ku daraya ada keliya wax kuma siinayo laakiin adaan kugu karaameynaya marka ilaahay wuxuuna leeyahay ruuxii akhriyaa la karaameynaya marka asaga keliya mahee dariskiisii ehelkiisii gurigiisii iyo intii la xiriirtay ayaa markaasi ammaan iyo nabadgelyo la siinaya waa aayad cajiib badan qisaska waa ugu dambaysiinayaa marka hore waxaan ku hormarayaa macnaha aayadda oo kooban allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum intaas hore waxa waaye ilaahay waa allihii laa macbuud alla la caabudo ma jiro hayruhu isaga keyrkiisa ila allah isaga ma ahayn tawxiidkaa meesha ku jiro oo waxa ugu fadli badan ah alxayu alla weligii nool alqayuum u taagan makhluuqaadka uu abuurtay maarayntooda annaga hadda intaan fadhinaa maamulaan nagu dul socdo yaa maamulaayo ilaahay subxaana wa tacaala haddaad taas aaminsan tahay cid aad ka cabsanaysa ma jirto sababtaa hooshaadoo dhan gacanta ilaahay ku jirtaa that's why qofkii aayatulkursi fahma akhriya ku dhaqankeeda maxaa waaye wuxuu ilaahay sheegaya inaad rumaysato oo ilaahay subxaana wa tacaala tala saarato laa ta'khuduhu sinatun walaa noom ilaahay lulmo ma qabato sinatun waa lulmo hurdana ma qabato oo waxaa imaanayso 24 hours waxa socdo dhuma ilaahay maamulaa haa bini aadamka markuu maamulaayo hurdu lulma qabanayso hurdu u baahnaanaya nasashu u baahnaanaya ilaahay subxaana wa tacaala labadaba ma qabanayso sinatun walaa noom intaas kaliya marka waxaa laga inaad dhahdo ilaahu waxaasaan u baahnay meel kale maa ka helaysaa maya lahu mulku samaawaati walard manaa ilahay subxana mulkigoo dhan isagaa leh waa macnaha waay allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatu walaa noom lahu ma fi samaawaati wama fi lardi ma fi samaawaati macnaheed waxa waaye mulkiyadiisay ku jirtaa isagaa leh waay marka maalik waay allah subxana wa taala almaalik mar kastoo ilahay markaa sheegsa magaciisa alaa raacinaysaa almaalik ilahay muxuu leeyahay marka wax walboo raadinaysa isagaa leh isagaaba gacanta ku hayo caafimaadaan raadinaya ilaahu anaa hayo ilaahu maalqabin inaan noqdaan rabaa anaa hayo iga soo doono ilaahu xaasaan rabaa inaan guursado anaa hayo iga soo doono ilaahu caruuraan rabaa inay dhashaan anaa hayo iga soo doono ilaahu caruur waa leeyahay laakiin baariyaal inay noqdaan aan rabaa anaa hayo lahu ma fi samaawaati wama fi lard culimadu waxay dhaheen kelimadaasi ma fi samaawaati waxa ku jira samaawaadka oo dhan ilahay isagaa leh ma ahan man fi samaawaati lama dhihin man waa noolo waaye caaqil ah marka halkan ma fi samaawaati waxaa la yidhi waxa ilaahay uu abuuray waxa caaqilka ah iyo waxa aan caaqilka ahayn waxaan caaqilka ahaynaa badan marka litaqliib ee dhahan luqadda carabiga dadka yaqaanaa fahmayo marka maadaama ay badan yihiin marka iyagaa la isticmaalay ma fi samaawaati wax kasta waa marka wixii kastoo wax kasta ahaa oo dhulka iyo cirka ku jirta ilaahay isagaa leh waxaa hoos imaanaya marka bini aadanka saddex ayaa caaqil ah bini aadanka waa caaqil malaa'igta waa caaqil jinigna waa caaqil intaas caqli la siiyey ay wax ku kala garanayaan inta kasoo harta oo dhan xitaa hadday noolo yihiin caaqil maa sida xayawaanka oo kale marka waxaas oo dhan yaale allah lahu ma fi samaawaati wama fi man da alladii yashfac yaa shafaaca qaadayo ilaa ilaahay inuu idin bixiyo maahayn halkaasna waxaa lagu soo ururinayaa shafaacooyinka laga bilaabo shafaacada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay rasuulka xadiis uu ku sheegay maqaaman maxmuudin inuu leeyahay maqaam gaar ah maalinta qiyaamaha markii dadka ay daalaan qoraxda ay gubto oo qaarkoodna har ay fadhiyaan dadka sadaqada baxsada isla markaasna qaarkooda 7 sifo waaye iyo madaxweynayaasha oo caadiliinta ah harka ay fadhiyaan meesha madaxweynaha aan caadilka ahaan cadaab uu ku jiro intaan tii aakhire la gaarin dhididkiisaa gubayo qoraxdaa gubayso markaas dadkaas wada qaylinaya waxay weydiisanayaan xukunkii ilaahay inuu bilaabo nabigaa shafaaca qaadaya marka waa shafaacada meesha ka bilaabaysaa iyadoo kooban laakiin ilaaha idmaayo man da alladii yashfacu cindahu ila biidnih yaclamu maa bayna aydihim wamaa khalfahum bini aadanka hor iyo gadaalba ilaahay subxana wa tacala wuu ogyahay waxaa lagu fasiray halkan ilaahay bini aadamka wuxuu ogyahay markuusan jirin wuxuu ahaa ilaahay maa kaana wixii hore u jiray iyo wamaa yakuunu waxa hadda jirayo
wamaa sayakuunu iyo waxa imaan doono ilaahay wuu og yahay intaas waa aayad qaybtaas macnaheeda culummada waxay kaloo yidhaahdeen ilaahay wuxuu og yahay maa lam yakun wax aan dhicin idaa kaana fakayfa yakuunu hadduu ahaan lahaa siduu noqon doono ilahay wuu og yahay walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ila bima shaa ilaahay cilmigiisa wax koobi kara ma laha marka halkaa waxaa ku qarsoon almuxiit ilahay inuu wax walba koobo iyo alcaliim ilahay wax walba inuu og yahay markaasi kadib walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ila ma shaa wasica kursiyuhu samaawaati waalard halkan waxaa laga hadlay kursiga ilahay cajaa'ibta suuraddan ay leedahay kursiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa jiro kursi samaawaadka iyo dhulka kow waxaa jiro kursi laba waxaa jiro carshiga ilaahay carshiga ilaahay marka waxaan rabaa weynida iyo cadamatullah subxaanahu wa tacaala iyo sarayntiisa lagu soo gebagabeeyey wahuwa alcaliyu alcadiim fiiri xagga dambe ilaahay waa sareeya waana weyn yahay maxaa daliil u ah weynanka ilaahay subxaanahu wa tacala waxaa daliil u ah kursiga ilaahay samaawaadka halkii samada kale waxay u jirtaa 500 oo sanadood oo loo soconayo allahu akbar 500 loo soconayo bini aadamkaaba dhammaanaya cumrigiisa khaasatan dadka waqtigeena nool labadii samaawaad inta u dhaxayso haddii la soconayo socod bini aadam uu socdo waa 500 oo mashi waayo oo socod ah oo sanadood marka haddii 7 samaawaad ku dhifato 500 waa 3500 oo sanadood waa wax cumri gaaraya maba jiraba waxaa soo haray samaawaadkii waxay ku dhex jiraan fii jawfi alkursiy kursiga ilaahay subxana wa tacala ay ku dhex jiraan oo intuu la ekaanaa samaawaadka markaasi xalaqada oo silsilada oo haweenta ay xirato necklace-ka oo haweenta ay xirato xalqadeeda yar ee samaawaadka iyo dhulka ee la ekaanaya marka loo fiiriyo kursiga weynankiisa allahu akbar ilaahay weynan badnaa kursigiisa saas ah kursigaasi marka loo fiiriyo carshiga ilaahay kursigaas oo gudihiisa ay ku jiraan samaawaadka iyo dhulka ayaa kursigaasa wuxuu la ekaanayaa xalaqad yar marka loo fiiriyo carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo carshigaasi ilahay wuu ka koreeyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa intaasaa kugu filan makhluuqaadkiisa waa weyn annaga marka xaggeen ku jirnaa haddii oo samadii weyneed oo aan arkaynin weynanka badneed oo geeska gees adduunka dhan koobaysay hadday samadaasi toddobadooda iyo toddobada dhul ay noqonaysa xalqad yar oo ku dhex jirta fii jawfi lkursiy suuraddan awoodaha ilaah aa lagu muujinaa aa lagu tusinaya saa ilaahay uga cabsato saa ilaahay subxaanahu wa tacaala aada u jeclaato cabsi keliya maaha sababtoo ah ilahay wax walba isagaa hayo من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه وحوى كرسيgiisa wuxuu waasic ka noqday oo uu ka weynaaday oo hoos yimaado samaawaadka iyo dhulka وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم halkan waxaa loola jeedaa samaawaadka iyo dhulka ilaalintooda maarayntooda ilaahay subxaanaه wa tacaala culays kuma aha walaa yudqilhu waay waxaa lagu soo gebagabeeyey wahuwa alcaliyu alcadiim alla sareeya oo awood oo weynan badan suuraddan marka 4 ee dawo u tahaan dhahay 4tii aan sheegaya marka sixirka dawe u tahay qiso yar oo sixirkaan soo qaadanaya markaasi sixirka dawe u tahay maxay kaloo dawe u tahay waxay dawo u tahay xasadka haddii aada rabto qof ama jinni aan la arkaynin oo laga yaabo inay ku xasdaan wuxuu ilaahay ku siiyey dartooda inaad isaga ilaaliso suuraddan isaga ilaali xasadka wuxuu dhalaa waxa la yihahdo isha oo rasuulku yidhi alcaynu xaq isha wax jira waayo waxaa dawo ah suuraddan marka meeqaan maraynaa 3 waa sixirkii waa xasadkii waa ishi iyo jinniga waxaan isku dayayaa 4 qiso inaan keeno dhammaan
hadduu ilaah yidhaahdo. horta qisada shaytaanka iyo jinniga waxaa kugu filan qiso abaa hureyra zake ilaali la yiri, cidna yaysan qaadan. habeenka waxaa u yimid nin oday oo waayeel ah wuuna ku qabtay isagoo qaadanayo. abaa hureyra wuxuu yidhi waxaan zake waaye xaqaaga maahee, da'daana waa jirtaaye maxaa kugu kalifay? wuxuu yidhi waa ku baryayaaye isii daa, waxaan kuu ballan qaadaa mar dambe inaan soo noqon. kow waayeelaan ahay, laba waa gaajeesnahay, saddex caruuraan ka soo tegay, ii naxariiso. wuu iska daayay. subaxdii marka la gaaray nebiga wuxuu ku yidhi abaa hureyrow ninkii xali kuu yimid ka waran. markaasaa wuxuu yidhi abaa hureyra ninkii xali ii yimid waa yeelka ahaa, ilan rasuulku waa loo sheegaya, jibriila u sheegayo, waa nebi, in huwa ilaa waxyun yuuxa, waa loo waxyoonaya, waman yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun. macnaa iska hadlayo isaga, wuxuu ku hadlayo o dhan waa waxyi socoto, waa loo sheegay, ribora la siiyey, jibriila u sheegay waxa dhacayo, qaar ka mida loo sheegay waxa adduunka ka dhacayo. marka wixii dhacayaa loo sheegay. wuxuu dhahay abaa hureyra ninkii oday uu ahaa, waa yeel ah, maskiinna uu ahaa, caruurnu ka soo tegey, marka waa iska cafiyey rasuulka ilaahu. sheekada way dheereed, haddana habeenka kale wuu soo laabtay, sidoo kale uu dhahay iska kaa cafi, maanta keliya waa ballanqaadan kuu sameyna, mar dambe ma soo laabanayo. cafwan rasuulku uu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam subaxdii markii la gaaray ninkii ka waran. wuxuu dhahay sidii oo kale cafis u weydiistay ya rasuul allah, markaan waa cafi laakiin mar dambe cafin doono. soo ururay qisada. marka habeenkii saddexaad uu yimid wuxuu dhahay waan ku qabta caawa, mana ku cafinayo, tiirkaasaan kugu xirayaa. markaasaa wuxuu yidhi waxaan ku barayaa u dhahay haddaad duco aayad haddaad akhrisato habeenkii, shaydaan wuxuu yidhi aan waxba ku yeelaynin. marka wuuna isku sheegay inuu shaydaan ahaa. subaxdii markii la gaaray rasuulku wuxuu yidhi ninkii maxaad ku samaysay xalay? xalay wuxuu dhahay waa sii daayay, laakiin waxaan ku sii daayay aan kuu sheegay rasuulka ilaahu. wuxuu ii sheegay, wuxuu dhahay waxaan ku barayaa aayad haddaad akhriso weligay meeshaa joogtaan ka soo dhawaaneyn. markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sadaqaka wahuwa kaduub, wahuwa kaduub. runuu kuu sheegay isagoo shaydaanka beenlow uu yahay. ilaahay subxaana wa tacaala waa runlow, shaydaanka waa beenlow, wax beenuu kuu sheegaa, hadhowna qarkuu kaa tuurayaa, aakhirana xisbigiisaad ka mid noqonaysaa, walciyaadu billah. inamaa yadcuu xisbahu liyakuunu min asxaabi saciir u dhahay ilaahay. xisdadu urursanayaa hadda, waxyaalaha xumaanta oo dhan yaa faafinaya, isagaa faafinayo. waa toobad keenaysu kuu sheega, waa beentiis waay, waa inaad dhimataa laga yaaba intaadan toobad keenin, ahlu naar aada noqoto. calaa kulli xaal iyadoo kooban shaydaanka qisadiisa, kow shaydaanku waa uu kaa celinayaa. ilaahay subxaana wa tacaala haddaad niya ikhlaas ah aad ku akhrisato aayadan, nooc kastoo shaydaan ka muuqda iyo kan qarsoonba ilaahay subxaana wa tacaala wuu kaa ilaalinaya. hadaayatan waa soo sheegay sayidina cali markuu nebiga uu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi adiga keliya maaha dariska o dhan ay ilaalinaysaa haddaad akhrisato. waa aayad culus waay. qiso waxaa jirto nin oo sixroolo ahaa. qisadan soomaaliya ka dhacday marka la ii sheegayay. nin waxaa jira dadaa meel uu ku xirtay, sixroolo ahaa, dadka indhahoodu indha sarcaaduu samaynayo. marka lacagu urursadaa, muxuu ku urursadaa? wuxuu leeyahay intaas dhig, intaasoo shilin, dadkao dhan markay wada dhigaan. markaasaa wuxuu leeyahay idinkoo arkaayo aan geeluu haystaa marka, oo geel weynaa meesha yaallo. geelka dabadiisaan gelayaa, idinkoo arkaayo afka geelkan ka soo baxaya. dadku waxay leeyihin say ku samaynaysaa? dhiga meesha lacagta. dadka lacagta isku soo dardarayaan, saasuu lacagta ku urursadaa. waa sixroolu ahaa. markaasuu sameynaa marka maalin kasta intaasuu lacagu saas ku qaadan jiray. maalin maalmaha ka mid a marka waxaa dhacday ninkii dadka meesha oo dadka isugu yimid waxaa ka mid ahaa, maalin kasta ciid ma ahee, nin ahlu qur'aan ah oo xadiiska waxa axaadiis iyo aayada aan idiin akrinaya hadda soo dhegaystay. soona dhegaystay in sixirka lagu buriyo aayatulkursi. ninkii marka dadka o dhan marka lacagta dhigana wuxuu dhahay niyahu ma samayn karta u dhahay. wuxuu yidhi aad maxaa tahay? wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan ku tusiyo dadkana aan tusiyo inuusan samayn karin. waa kaase lacag waa qaadatay aniga kuma siinayo u dhahaye, orod samee, dabada ka gal, afka ka soo baxa.
dad badan oo xilaniyo faraha ka qaad ninkan anaga aragna uu sameeyaa maalin walba uu sameeyaa anaga aragna soo dabada ka galaya geelka afkiisa ka soo baxay okay go ahead samee waa baxay ninkii geelka gadaashiisu istaagay waxana dhanka dabada ilaa dadku in sarcaadaya markuu istaagay xagga dambe ka soo baxay fiiriya ninka isla markii uu qabtay markii الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه wuxuu arkay ninkii xagga dambe ka soo wareeganay markii xagga dambe ku soo wareegtay afka geel markuu soo gaaray waa soo tuuray dadku xidhay waa ku aragnay xagga dambe ka soo wareegatay dabada ma galin wuu buriyay sixirka aayadan sixirku burinaya qofka sixir tuhmaya inuu isku akhriyo ama hadduu isku akhrin karin dad kale uu ka codsado ahlu khayr inay ku akhriyaan isha iyo suuxtinta laakiin waxaan ka hormarnaa qiso kale nin hindi ah meel ka soo baxay isagana sacuudiga sheekadan wuxuu dadku ugu sheekeeyaa fujujirkaaga waxa kugu soo socdo dhan kuu sheegaya marka intaas oo lacagna way siinaysaa soomaalida hadda sixroolayaasha waxay lacagta kaga qaataan waa kuwan kitaab gaablow loo yaqaan madaxweynahan rabaa inaan noqdo ii fiiri ana حديثك حسوس قرايا من أتى أنا عرافا أما كاهنا قفكي أطاق كتاب قابلو أما سحرالي أو أفير فيرنا تجيتانك كلية أتجيست أفرتن صلادات ملقى أقبلاي وتجيتانك كلية هدار رمي سنة وكفرسي وقالوا ذي هو مدحوينا إن نقول نسائي موقته $10 ماشي عندك laakiin waxbaa la rabaa inaad samayso wixii aan ku sheegaya laakiin madaxweynaha adaan noqonayo marka haddaa u tagto kuwa madaxweynayaasha u sharxan ama madaxweyne goboleed ama madaxweyne qaran u sharxan haddaa u tagto tegitaanka oo keliya xadiisa wuxuu sheegay 40 sanadood ma laga aqbalayo waa tegitaanka haddaad rumaysato waxay kuu sheegeenna diintaad ka baxday ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkan hindiga marka wuxuu dadka nina soo kaxeeyey wuxuu dhahay wax walba oo kugu dhici kara kuu sheegaa inta fariisuu dhahay ninka marka wuxuu ahaa nin ahlu qur'aan u ahaa waayuu dhahay go ahead ii sheeg ninkii marka intuusan hadalka bilaabin wuxuu dhahay ninkii oo diinta yaqaanaya wuxuu akhriyay aayatul kursi allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم مركي ودمي أو حور راعي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مركو راعي نكي أكفليي إنه استاغي وعري وصاحركي هندي ahaa wuu istaagay wuu cararay sheekh uu ugu sheekeeyaa sheekadan ii sheegay marka noo sheegay isha iyo jinniga iyo xasadkeeda u tahay hal qisan kusoo wada koobaya intaas oo dhan qisadan gabar oo iskuul maclimad ka ahayd barnaamijkan qisadan insha allah aan kusoo koobi doona hadduu ilaah yiraahdo maya qisada qiso oo kale oo sixirkan ka hormarinaya tan oo isha ah xaafadaha ka mid ah guri laga ijaari jiray ayaa nin xaafadda musaafir ku ahaa yimid oo guri raadinayo hal guri keliya bannaan gurigaasna waa yeelaa lahayd laakiin gurigaas mushkilaa ka jirtay qof kastoo laga ijaaro waxaa meydkiisa laga soo qaadi jiray wax dilina lama oga marka
dadkii oo dhan magaaladii iyo xaafadii iyo way ku sheekaystaan yaan la ijaaran. ninaa yimid oo musaafir ah, guryihii dhan way ka buuxsameen. waxaa la yidhi hal guriyaa bannaan, laakiin gurigaasi inta qof ijaaratay meydkooda laga soo saaray. marka maamadaas waana guri weyn, maamadaasaana gurigaas leh. uu u tegey, maamadii waxba kama qaran, waxay tiri gurigaasi waa waxaan u malaynaa basra inuu ku yaalo, qiso hore waaye. waxaa gurigaasi dhibaa naga haysto, laakiin guri weyn waaye, waa ijaari jiray. laakiin maalmahan dambe qofkii gurigaas degaba meydkiisa laga soo saaraa. marka inaad ogaataan rabaa, haddaad saas ku qaadanaysid waa kaa ijaaraya, haddii kalena gurigaas dhibkaasuu wataa. wuxuu dhahay ana dhibkaas kama cabsade, nin ilaahay keliya ka cabsado waana tii aan idiin hormariyay. qofkii aayatulkursi micnaheeda fahma oo weyninka ilaahay iyo cadamadiisa iyo ilaahay subxaana wa tacaala wax walba inuu karo, iyo ilaahay wax walba gacantiisa inay ku jiraan, iyo ilaahay subxaana wa tacaala wax ka awood badan inaysan jirin, qofkii rumeeyo aayaddaas fahma macnaheeda cid uu ka cabsanayo malaha. wuxuu dhahay lacagta keliya ii sheeg qiimaha, anaa ijaaranayo, wax igu dhacayna malaha insha allah. ruux ilaahay aaminsanaan ahay. markaasay dhahday kuwii horeba ilaahay way aaminsanaayeen, iska bax gurigaaga aad, gurigii seexo. wuu baxay, ninka guriguu aaday. markuu seexday habeenkii ayaa wuxuu arkay wax weyn oo maaragtay oo indho gaduudan leh. markuu arkay maahine wuxuu dhahay, isagaa ka sheekeynaya, magaciisa waxaa la dhihi jiray abi kacab. qisadan nin la yidhahdo cutaybaa soo wariyey. wuxuu dhahay isla markiiba wuxuu bilaabay allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa taakuduhu sanatun. aayatulkursi u qabtay. aayatulkursi markaan waday, isagaa ka sheekeynaya. wuxuu dhahay wixii weynaa oo dhan oo soo yaraanaya aan arkay. markaan soo gaaray walaa ya-uuduhu, markuu soo gaaray meesha xifduhumaa wahuwa alcaliyu alcadiim, wixii bush meesha ku daatay. markaas kadib wuxuu dhahay hurdadaan ku laabtay. dadka subaxdii banaankooda buuxaan arkay, waxay sugaayeen qof meyd laga soo saarayo. ninkiyaa soo baxay, afka gacanta saaran. alla ninkii ma dhiman, alla ninkii ma dhiman. markaasaa waxa la yidhi maxaa samaysay, maxaa samaysay. markaasaa wuxuu dhahay kaaliya arka waxaad ka cabsanayseen oo dhibka idinku hayay. meesha oo dambas ahay ugu tageen, jinnigii oo dambas ah. wuxuu dhahay jinni shaytaana oo weynaan ku arkay meesha, aayatulkursi aan akhriyay. qisada marka, qisadan waa qisada cajiibka badan aan kusoo gabagabaynayo. qof walba oo 3 xanuun qabo aayatulkursi akhriso. 4 aan dhaho haddaad sixir tuhmaysid, xasad qof inuu ku xasday haddaad tuhmaysid, il haddaad tuhmaysid, jinni inuu ku taabtay ama inuu ku galay haddaad tuhmaysid, akhriso aayatulkursi. qisadaan dhegeyso. qisadaan kusoo gabagabaynayaa. nin ayaa isagoo ku jira shaqada la soo wacay, ma dheereen. sheekha soo wariyey sheekh cabdullaahi nusayr waaye, culamada ka mid ah. wuxuu dhahay ninkii teleefoonkuu qabtay, waxaa la yidhi xaaskaaga galaaska iyadoo dhegeysa ku suuxday. waa xaas ilaahay siiyey jamaal iyo sida wax loo dhigana ku ahayd qof skilled ah, macnaheeda waa xirfad aada u sarayso qaabka ilmaha wax loo baro. iskuulka galaaska dhexdiisa ku dhacday, way suuxday, qalalaa ku dhacay oo weligeed aysan qabin. ninkeedu soo ordayaa yimid, ambalasaa timid, wuu la raacay, isbitaalkii aa la geeyey. isbitaalkii markii la geeyey, dhakhtarkii meel kastuu ka baaray. dhiiggeeduu baaray, wuxuu baaray maaragtay xubnaheeda oo dhan, meesha uu wax uu ku tumi karo, maskaxdeeda la baaray. wax walbuu baaray, wax uu ka waayay. marka weli way socosanta. calaa kulli xaal aan soo koobo qisadii. dhakhtarku wuxuu dhahay gabadhan waxay qabta ma laha. gurigaa lagu soo celiyey. marka guriga lagu soo celiyey, iyadoo jiifta oo hurdaysa, oo hurda camiiq ku jirto, oo waxba kala ogeyn, ayaa ninkii wuxuu wacay sheekhii haddaan idiin sheegay, sheekh cabdullaahi nusayr. wuxuu dhahay sheekhow xaaskaasaa iga noqotay. joogii ka dhacday iskuulka iyadoo wax dhigayso, dhakhtaraa la geeyey, si kastaa loo baaray. hadaayata waxaan idiin dhahay haddaa xasuusataan, dhakhtar kasta ahoo waxyaalo waxaa jiro dhakhaatiirta waxba ka qaban karin. sixir dhakhtarka wax ma ka qaban karo, il dhakhtar wax kama qaban karo,
xasad dhakhtar wax kama qaban karo, jinni dhakhtar wax ma ka qaban karo, ma daaweyn karo. jinni daawo laguma daaweeyo. jinni jirkuu galaa, rasuulkaa noo sheegay calayhi salaam, waa makhluuq ilaahay abuure oo wax dhibo. muslimka jirka galo oo wax dhibo. cafwan, calaa kulli xaal gabadhii wax walba waa laga soo waayey. sheekhii u sheegay, wuxuu dhahay maxaan sameeyaa? sheekhi wuxuu dhahay waxbaan kugula talinaya, si fiican i dhegeysu dhahay. wuxuu dhahay aayatul kursi gabadha hadda aawe sariirtay jiiftaa, wax ay kala garanaysa ma laha. suuxtin iyo qalaloo wax ku dhacay. waxaa laga yaabaa jini inuu sabab u yahay, waa suurtagal. il waa suurtagal. waxaa samaysaa aayad qur'aanka ilaahay uu ku tilmaamay, rasuulkiisuna uu noo sheegay aayadda ugu weyn inay tahay. aayaddaasaa jirtay, aayaddaas akhri. soo weyse qaado, qiblada u jeeso, akhri. markaad akhriso iska sii wad ilaa ilaahay subxaana wa tacaala gabadhaan uu ka soo kiciyo. sheekhay aayadduu bilaabay. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا وذايا مركو مراي بقول إيو كونتون مركو مراي oo tii 149 u dhameeyay 150 markuu marayo oo jeer hal mar inay soo fariisatay way hadashay. jinniga ka dhaxalay qataltani soo dhahay qeelina waa idishay iga jooji, halkaas ku jooji. isagana waa u jawaab, wuxuu dhahay ma ka joojinayo, waa kugu wadaaya, waa ka baxaya, haddaan ka baxaya. markii buu ka baxay. markuu ka baxay gabadhii waa hadashay marka iyadoo caadi ah. waxay lahayd maxay u dhaxay markaasuu sheekadii u sheegay. iskuulka inay joogtay, iskuulka qalal inuu ku dhacay. way qalashaa la yidhi marka hore. qalalkan dawo u yahay, ilan waa aayad wax walba dawo u ah. qalala igu dhacay, qalala kugu dhacay, dadka ku arkay saasay yidhaahdeen. kadib waa dhacday, waa suuxday, isbitaalaa lagu geeyey, dhiiggaagaa la baaray, maskaxda la baaray, xubnahaga la baaray, wax laga helay malaha. laakiin sheekhaasaan la hadlay. markaasaa wuxuu ii sheegay aayatul kursi inaan kugu akhriyo. 150 markaa maraayay, markaasaa soo kacday. jinniga kaa dhex qeyliyey, jinniga hadda wuu cararay. gabadhi maalintaas waxay ka dambeeyey suuxtantii, qalalkii, jinnigii kuma soo noqon. wuu wacay sheekhii u sheegay sheekadii. حرا شيخي الحمد لله رب العالمين. حرا بقولي كنت مركا مراي مركا سجنوا كسوقيلي. مركا شيخة كعجيب بدنا كدم بيسي حافظة كبر كمذ يويل وحو أهاب حنون كي جينيغا كودعي يجو شيخة مقلي شيخة عن مقلي نينكي ويرين هذا نينكي شيخ ما هين لصعه مركا تم نينكي شيخ وزقو بدلي نينكي وير وحو دحي فاميلكا وي ما حدهن gabadheena ama wiilkeena xanuunkan ku dhacay oo mar dhexaas la yiri gabadha xaaskaagu ku dhacay, marka ma noo imaan kartaa quraan ma noogu akhrin kartaa? ninkii wuxuu waa iska ijtihaadi dadaal aan sameeyay oo ah waayahan dhahay waa u tagay 150 aayatul kursi aan ku akhriyo dhahay. 150 markaa gaaray jinniga inuu soo baxay uu qeyliyay uu dhahay waa baxaya mana soo laabanayo. xaafadda ninkii waa laga bartay. marka halkan culumada oo sheekhaasi wuxuu dhahay tirada shardi maaha 150 ama 100 inay ahaato, laakiin tirada badan oo aayatul kursi waxa ku gubanayo oo uu dhibaya jinniga. jinniga laba nooc waaye. jinni oo qofkan wax uun ku maagayo iyo jinni il ahaan u soo gelayo. leen wax ilaysto ma ahan bini aadan oo kaliya, jinnigan wax buu ilaystaa. gabadhan wuu ilaystay. waxaan ku soo gabagabeynayaa hadduu ilaahay yiraahdo 3 talo dadka raba inay isku akhriyaan ama dadka raba inay dadku akhriyaan. marka hore diintan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu uu soo dejiyo wuxuu ugu talagalay qof walba inuu asaga ku dhaqmo. qof kale wakiil ugu yahay ma jiro.
marka waxaan rabaa dadka walaalaha inay fahmaan marka qaarkooda adiga ayaa isku daweyn karo laakiin 3 talo ama 3 waano oo culimada dhaxda culimadu waxay dhahan hadaa rabto quraanka ama dhikriga ama ducada ama wardiga inuu soo gaaro maxaa shardi ah kow al-ikhlas ilaahay dartiisa u sameeyo ilaahay dartiisa u sameeyo maxaa loo jeedaa luqadaas ilaahay ku raali gali ilaahu aayatul kursi aan akhrina adaa soo dejiyay waa aayad ugu weyn magacyadiga ku qarsoon oo hadii wax oo lagu bariyo oo wax aan kugu tuugo oo wax walbaad isiinaysay ilaahu iga aqbal ilaahay dartiisa u aqbal ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisa u akhri ilaahay ku raali gali kuma tahay laba macsi oo dhan ka fogow carabkaaga macsi ka ilaali ishaada macsi ka ilaali dhagahaada macsi ka ilaali xubnahaaga oo dhan macsi ka ilaali waa laba way macsad maxay keenaysaa waxay oodaysaa ducada in la aqbalo kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun ilaahay wuxuu dhahay qulubtoodii ayaa xirantay sababtu waa maxay macsi darteeda marka block waxa block waxa ula jeedaa waxa ted ama waxa kala xiran raxmadii ilaahay uu soo deyn lahaa iyo adiga dhexdiini ayaa kala xirantay tan saddexaad xalaal nina nabiga u yimid xuriya rasuul allah waxaan ducadeeda in la aqbalo quraanka in la aqbalo salaadeeda in la aqbalo rasuulku wuxuu dhahay waxa cunaysid xalaal ka dhig intaas kaliya saddexdaas talaan ka hormarina oo kaliya haddaad samayso qof walba aayatul kursi isku akhriyay ama wardi isku akhriyay ilaahay subhanahu wa ta'ala dawadeedu uu soo dedejiyay marka maanta waxa haysataa hal aayad oo afar aad ku daweyn kartid afar xanuun oo dhaqaatiirta aysan daweyn karin sixirka xasadka isha iyo jinniga qisooyin oo aanay goobjoog u ahaana kolay dadka qaarkood oo u sheegay waxa ka mid ahayd haween socon weysay socodka dhib ku ahaa isla markaasna lugihii barareen dhakhtar kasta oo specialist foot specialist ahaa oo dhanna wax ka qaban waayay muxuu qaban waayay wuxuu leeyahay wax ma qabtid qofkina lugaha waa bararsan yihiin socodku waa dhibaya maxay noqdeen markii wardigii qofkii lagu akhriyay ilaahay subhanahu wa ta'ala lugaheedii lagu caadiyay noqdeen ilaaha xifdiyay aayatul kursiga qofka xisniga gelinaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdigiisa oo macnaheedu ay tahay wax ku dhibaayo oo dhan ma arkaysid ma maqlaysid isla markaas kuma soo dhawaanayo sida qisadii Abu Hurayra arkaysay aan arkaynay Abu Hurayra habeenkaas waxay ka dambeeyay mardam kuma soo noqon shaydaanka rasuulku wuxuu dhahay ninkaasi shaydaan uu ahaa warku ku sheegay runa ahayd aayatul kursi iyo culeyskeeda iyo miisaankeeda laakiin been loo waaye waa shaydaan marka waxaan ku soo gabagabaynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanaynaa ilaahu subhanahu wa ta'ala aayatul kursi macnaheedu ilaahu waan akhrina ilaahu nafahamsi kuwii ku dhaqmo naga dhig dhamaanteena dhaqankan waxa waa ilaahay boqolkiiba boqol inaad ku kalsoonaato isaga inaad wax ka doonto oo cid kale aan wax weydiisan isaga kale inaad ka cabsato cid kale aadan ka cabsan shaydaan wax kaama qaadi karo bini aadam wax kaama qaadi karo il wax kaama qaadi karto wixii oo dhan markaad aayatul kursi akhrisato cabsida ka zuulayso waxaad noqonaysaa qof awood badan qof waxaad noqonaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala xisdigiisa ku jiro intaas oo dhan waxaan ilaahay weydiinaa inuu nawaafajiyo dad waxaa jira aayatul kursi yaqaana iyagoo yar xifdiyay ilaa hadda yaqaana laakiin tawfiiq la'aan haysato ma akhristaan todobadaas markay ugu yartahay akhri habeenka markaa seexanaysid akhri iyo subaxdii markaa weebarista akhri iyo shanta salaad dabadooda akhri salaada subax iyo salaada fajrkan waxaad ku dartaa allahumma ajirni min an-nar oo 7 jeer ah isku tuf adiga gurigaaga ku tuf ilmahaaga ku tuf habeen walba waxaad arki doontaa wax alla wixii xanuunadana maalintii hore aan ka hadlay xanuunka isha xanuunka sixirka iyagoo dhan cilaaqa ka wada dhaxayso astaamahaas oo dhan oo xanuunadii aan ka hadlay astaamahaas oo dhan haddaa isku aragto isku daway aayatul kursi ilaahu aayatul kursi nagu anfac ilaahu nafahamsi ilaahu kuwa ku dhaqma dadka gaarsiiya oo joogto u akhriya oo intaasoo jeer akhriya ku celceliya ilaahu naga yeel ilaahu tawfiiqasna waafaji
اللهم آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.